Miyamoto Musashi waxa uu ahaa Jabaanees caan ah oo loogu haray dagaalka seefta. Waxaa laga adkaanin 61 dagaal uu galay. Sidaa darteed waxaa la oran karaa inuu ahaa qof aqoon fiican u leh dhismaha is-edbinta ama self-discipline. Hal toddobaad ka hor intuusan geeriyoonin waxa uu qoray qoraal gaaban oo loo yaqaano Dokudo oo micnihiisu yahay jidka kelinimada. Qoraalkan Musashi waxa uu ku sharxay 21 mabda' oo loogu talagalay in lagu noolaado nolol is-edbin adag leh. Haddaba muuqaalkeenna maanta waxaan diiradda ku saari doonnaa 5 mabda' ee ugu horreysa uu ku xusay qoraalkiisa Dokudo. Ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. mabda'a koowaad u aqbal wax walba sida ay yihiin. Markaad diido inaad u aqbasho xaaladda sida ay tahay, waxaad noqonaysaa qof maala'awaale ah. Maala'awaalka ama delusional waa inuu qofka diido inuu aqbalo xaqiiqda sida ay tahay, ama uu yahay qof wax kastoo saxan ka hor imaanaya. Haddaa wax u sheegto waxa uu ku leeyahay sidaa ma ahan ee waa sidaas. Qofka marka uu diido ama awood u yeelan waayo inuu aqbalo xaqiiqda, maala'awaalkaas wuxuu ka hor istaagaya inuu si wax ku ool ah ugu noolaado nolosha. Haddii aad awood u yeelan weydo inaad si fiican ugu dhaqanto xaqiiqda, nolol adag ayaa ku sugaysa, sababtoo ah dadaalkaagii oo dhammi wuxuu ku dhammaan doonaa guuldaro. Si aad u guulaysato waa inaad xaqiiqda u aragtaa sida ay tahay. Tani waxay ka bilaabmaysaa inaad aqbasho runta. Inaad wax walba siday yihiin u aqbasho waxay noqon kartaa hawl adag, maadaama ay ka soo horjeedo dabeecadda dabiiciga ah ee qofka oo ah inuu isbeddel diido isku dayo inuu xakameeyo duruufaha nolosha. Qofka edbinta leh waxa uu aqbalaa xaqiiqda si uu ula shaqeeyo halkii uu ka hor imaan lahaa. mabda'a labaad, ha ka dhigan hadafkaaga ugu weyn raadinta raaxada. Raaxo ka dhigashada hadafkaaga ugu weyn waa waddada keenta burburka, sababtoo ah raaxada noloshu waxaa lagu helaa si fudud oo waxaa aad u dhow waddooyinka loo maro. Ujeedka ugu weyn mabda'an waa inaadan diiradda saarin waxyaabaha jaban ee raaxada dhow, sida inaad mar walba hesho cunto aad u macaan ama yeelato balwad ama madadaalo aan faa'iido lahayn, waayo way soo dhammaan doontaa. Taa beddelkeeda diiradda saar inaad waxyaabaha faa'iidada dheer leh waqti geliso. Mar kasta nafta waxay jeceshahay waxyaabaha sahlan, waxyaabaha raaxada dhow leh, laakiin waxaa dhiba waxyaabaha faa'iidada waarta leh sida wax akhrinta iyo dhisidda jirka. Raaxada dhow way gaaban tahay, meelka ma soo saarto, laakiin dadaalka iyo dhibka waa muddo kooban laakiin faa'iido dheer ayay leeyihiin. Qofka edbinta leh waxa uu doorbidaa howlaha naftiisa kobcinaya, xitaa haddii ay marka hore adag tahay, sababtoo ah waxa ay keentaa raaxo qoto dheer oo waarta. mabda'a saddexaad, ha ka qoomamayn ficil ama go'aan aad horay u gaartay. Qoomamadu waa dareen dabiici ah oo bini'aadamku uu mar walba la kulmo inta uu nool yahay, laakiin waa dareen waqti lumis ah. Qoomamadu waxa ay timaaddaa ama soo baxdaa marka aan ogaanno inaan khalad galnay ama aan ogaanno inaan go'aankan qaadannay uu ahaa mid laga fiican yahay. Inkastoo ay caadi tahay in mararka qaar la dareemo qoomamo, haddana waxaa muhiim ah in la xasuusto in ku mashquulidda khaladaadkaagii hore aanu ogaanno inay dhaawici karto wanaaggana hortaagan oo ay naga hor istaagi karto inaan si toogan horay ugu soconno. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la xasuusto in dhammaanteenu nahay bani'aadan, waana dabiici inaan khalad samayno. Ma awoodno inaan dib ugu laabanno wax ka beddelno wixii hore, laakiin waxaan ka baran karnaa khaladaadkaasi oo aan u adeegsan karnaa fursad oo aan ku noqon karno qof wanaagsan. Haddii aan soo koobo, inkastoo ay caadi tahay in la dareemo qoomamo, mararka qaar waxaa muhiim ah in la xasuusto in ku mashquulidda khaladaadkaagii hore waxyeelo ay leedahay. Adigoo mas'uuliyad ka qaadanaya ficiladaadii hore, diiraddana saaraya waqti xaadirkan, iyo adigoo qoomamada u rogi kara fursad isbeddel wanaagsan ah, waxaad gebi ahaanba ka tegi kartaa qoomamada. mabda'a afaraad, ha u murgoon qofkaa tegay ama aad kala tagteen. Kala tagu waa qayb lama huraan oo nolosha ka mid ah. Kala tagu wuxuu noqon karaa waayo aragnimo adag oo aad u xanuun badan. Ha noqoto kala fogaanshaha dad la jecel yahay, masaafada dad aad jeceshahay, ama xiriir jecel oo soo dhammaaday. Waa dabiici in xaaladdaas la dareemo murug iyo tiiraanyo, waxaana muhiim ah in nafteennu u oggolaanno in dareemadaas si caafimaad leh u soo maraan oo aan ugu bogsanno. Sidoo kale waa muhiim inaan xasuusanno in kala tagu yahay qayb dabiici ah oo nolosha ka mid ah, ayna suurtagal tahay in xoog iyo adkaysi laga helo xaaladahaas adag ee la soo maro.
dad baa yimaada oo taga, rag iyo dumar baa noolaada oo dhinta. Sidaa darteeda ha ka murgoon waxyaabaha lama huraan ku ah nolosha sida kala tagga. mabda'a shanaad, naftaada si fudud u arag laakiin dunida si qoto dheer u qiimay. fikradaha ah in naftaada aad ugu mashquushay si zaa'id ah waxay kaa hor istaagi kartaa inaad adduunka fahanto. taa beddelkeeda waqti badan ku bixi inaad fahanto sida uu adduunka yahay. wax ka baro dadka oo dhegayso. tani waxay naga caawin kartaa inaan si fiican u fahanno nolosha, inaan kobcino aragtideen oo aan saamayn toogan ku yeelano dadka iyo deegaanka nagu xeeran. marka aan diiradda saarno nafteena waxaa laga yaabaa inaan noqonno kuwa nafta la mashquulsan, taasoo naga hor istaagi karta inaan wax ka barano dadka kale ama aan sahmino fikrado cusub. laakiin markaan nafta si fudud u aragno oo aan dunida si qoto dheer u qiimayno, waxaan abuuri karnaa xushmad iyo isfahan joogta. marka aannu ku dadaalno fahamka iyo hagaajinta dunida nagu hareeraysan, waxaan nolosheennu siin karnaa ujeeddo iyo micno qoto dheer. waxaan noqon karnaa kuwa diiradda saaraya waxyaabo waaweyn oo ka baxsan nafteenna, taasoona siin karta dhiirigelin iyo isqadarin dhab ah. haddii aad raacdo shantan mabda', waxaad dhisi kartaa nolol is-edbin adag leh ama self-discipline iyo guul waarta. waxaan rajaynaya inaad muuqaalka ka heshay. fadlan haddii aad ka heshay noo like garay si uu dad badan u gaaro. haddii aadan nagu soo biirin, waxaan ka rajaynaa nagu soo biirtid oo kanaalka subscribe saartid, gambaleelkana aad furitid si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba aan soo gelino. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. sidoo kale waxaad qaybta kommentiga igu qortaa qodobka ugu muhiimsan shantan qodob ee aan soo taxnay, qodobka ugu muhiimsan ee aad ka heshay qaybta kommentiga nagula wadaag.